marka dhalinyarada marka halkan afafkan ajnabiga ka dhiganaysa ehelka afka koowaad waxa weeye waa afkii hooyada ee kelmadda u horeysay hooyo tiri afkaaga ay ka soo waliba meel ku furay dadka dibadda ka imanaya lacag soo diraya kan baa leeyahay qofatiga laga saaray isku buugalaya af ingiriisi faransiis waxa oo dhigay laakiin Soomaali kuma jiro marka afka Soomaaliga suuqani u yahay inagu waxaynu ku dhacday af ajnabiyeena wax ku baranay marka marmar waxaad arkaysaa adoo ku fikiray ama xuquuqul insaan ka hadal ama colaad sidii loo soo afjari lahaa inaad ka hadasho waxa soo dhan adoo ingiriisi erayadiisuna waa badan yihiin dal loo eegaba hadal iyo hobraad maase iyo mahmaahiyo gabay iyo geeraad masafo iyo madadaalo hees iyo xeelo sheeko iyo shararaaxin qofniin iyo run u hadal gees loo dayaba waa af hodan murti buuxda heesaha macaan mudan afkeena leh xigmad ay maskaxi keentay oo lagu muraaqoodo milic qariye roob maalinta ay dhibic ku maanshaysay subag miida dhuux mooye la eg buur macdayna jiifto mahmaayo lagu kaydiyo mudan afkeena leh tala murugtay meel la isku jabay oo mixnadi taalo nimaan mara aqoon baa diloon marin abaalkiisa garta macallinkeed weeyo mudan afkeena leh من جيت سارن وواحد موضوع من هريرية ومرات بسلعة كلام مدن أفكارنا له عد معاك شيكوين من المهشة ساوي أبو عنود سيدي نوم بشر مدن أفكارنا له ما ده دور ده هذا اللي قبل كده ترى اسمع لافتي مدن بقى معناها سوري دول لقى مقصودة يا مقولة ده رجل بحنش دي مدن أفكارنا له أنا جوا مركي عيني ده مرن تفعلي ما قال أرق مركي عن رأيي جاب مرق أسرة تاجي مرة دافي ويدو أقول لقوا مارمانة ما أنتي كعانك أولى شيء مدن أفكارنا ها الجمع هتسن روشك لا يسمى لي وكرتيني موتي من استوين كي صفر فراي جوشة ما قعنا إلهي حق معمول الشراء مرين أبان كود جود جيسة مع موستي يمدن أفكارنا مكاب تاجن أراد مال مرتية قبل لما نصودا ما يها واحد يسوق قبتية ما ده تاريخه أظن بايمان كرانا يمدن أفكارنا أنا جو عن وذا موتين من الحكي كوبيس وحن قبل ميمك وكع وقوم وذي حراقي فالله وحن أولاد مرمري ميرك رجالة يم بامر كايري هدان أنك بقشيء مراد كان كلا يهين من قراني وموجي مرهد لا يقرأي أنا معلم كثير habeen wanaagsan ku soo dhawaada caawa marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan kulligiin idin salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulligiin marka labaad caawa waa waxay ahayd inaynu u dabaaldegno afka hooyo oo aynu isku nimaadno inagoo faraxsan laakiin noloshuba caynkaa maaha I think Soomaalidu waxay tidahdaa balaayinta kaa maqan tahay qayrkaa way ku maqan tahay marka kolley naxdin iyo farxadba waa loo joogaa I think caawa walaalkeen maxamuud cabdille geeridiisii kulligii waan wada ognahay and I think kulligeen waxaan dareemaynaa culays badan baan dareemaynaa mar baan ka fakero isla malaha waa la kasal garayn doonaa caawa ma dhici doonto laakiin waxaan u malaynayaa intaynan isma meelu aragnayba haddayna halkan imanin so I think it's important inaynu wada joogno intaynii garanaysay inta isaga warkiisa maqashay ee ka dhaxday naxdintan geerida dhibaatada leh kolley hadhato faatixada iyo qur-aanka waxaynu aqrin doona sheekhadeeni joogno markaynu gabagabayno ama inta dhexda لكن I think
waxyaabihii wanaagsanaayen xusuusano waynala joogi doonaan waxaan jeclaan lahaa anigu arrintii kulligeen inaynu weekendkan wax self-care aynu igu kadhaano kulligeen samayno waxyaabo ama xaggii diinteenna inageliyo qalbiga inoo qaboojiyo ama aynu dhulkeenu jecel lahay tagno ama taxsida aynu soo boqono reerkii uu maxamuud ka baxay waxaasoo dhan kulli wayna caawin doonaa محمودنا نحريسي إن شاء الله كورابيو إننا نسوي إيمان كل يوم بعد قصير أنت كده عاو إحنا نسكني من واقسكي ما نت أفكر هو يو أفسماني هو وفيرست وتيجو هسي رنتي ما ينسمينين حفلة ترى كلا عاو أنا شيء هو أبي وهيستوريك وحنوصل دياري برنامج كحمد هداية لغة كسوماليات في الإنجليز كانوا يقولوا سومالي ريسورس هيريتج سنتر dhalinyarada ardayda ay wax ka barata kuwa support gareeya iyo sheekadii oo ah hogaamiyaheedii ayaa inoo keenay aan kulli waxaan rajayn doonaa inay habeeno sidoo kale oo badan ay inoo keenaan haddii la hayraa marka anigu wax badan ilama hadlayo anigii maxamed soo waxaan caawa dadka u yeedheeyo uu soo yardahay meel buu ku maqay wayman doonaa insha allah marka imika waxaan doonayaa inaan runtii soo dhaweeyo ugu yeedho sheekh xasan sheekh hadi inuu inoo yimaado soo faacadiyo طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد إخوتي في الإسلام وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا الله سبحانه وتعالى يسقى فضل ورزقه الله ينجي على أمة الإسلام ينجي على أمة صومالية ودجان أي ليه هنا وشيئا كان إلهي ما حد الدجين سيدنا إلهي براكو ونوشيئا مركاين ومضها وكلا السارين مدب كأي اللغة اللبض marka midabkeena iyo luqadeenu waa labada shay Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagu weyna siiyay sawir inoo qartay inagu ma waxaan u soo dooran taas marka u baahan waqti inaynu ma sameeyay aynu ku faano oo ma sameeyay ku adkeysano oo marka Soomaaliyeedna iyo Islaamnimadna labadaba aanaynu cidna uga haybaysanay marka maxay aan hadiyo jeer aynu ku dhaganaano taasna inaga faa'iideeno marka caawruntii barnaamijkan xuska maalinta marka maxay afka hooyo iskaba iman waxa weeyaan UNESCO ayaa mataqaana maxay ahayd ay go'aan ku gaadhay in bisha February 22keeda laga dhigo maalinta luqadaha caalamiga oo dhan oo qolo walba marka luqadeeda inay xusto oo ilaashato marka dabeetana ay marka maartan maxay ay saa ugu qoondeeyeen marka wadankeena hooyo runtii ilaa 7 sano hadda waa laga xusay iyada iyo maartan maxay iyo Minneapolis laakiin inaga Ilaahay wuxuu qadaray marka in maartan maxay inaynu maanta aynu bilowno taasoo marka ujeedadeeduna ay tahay marka inaynu joogtayno si marka jiilkeena kulliba halkan ama ku dhashay ama iyagoo yaryar la keenay ee muddo luqadii marka inay ma sameeyay ay ka sii ma sameeyay dukayso say marka luqadoodii ay ugu soo noqdaan marka ma sameeyay luqadda u bartaan marka luqadda lafteedii baa ooyday oo iyadoo cabanaysa baa waxay tiri magacaygu waxa la yiraahdaa af Soomaali da'adeydana ma aqaan bay tiri hase yeeshee indhaha waa soo joogay bay tartan badan ayaa soo maray afaf badan oo gumaystayaasha ayaan ka guulaystay waan jiray bay tiri waana noolaa galad eebe hay gaadhay buu ay tiri intii islaamku ku faafay geyigayga ayaan ku noolaaday waxaan iskaga caabiyo oo afka soo mataqaanay soo weeraraan iskaga celiyo dabargo warkiisana iska badaabay dabargo inaan dabargo oo la iga waayo adduunka marnaba ma taasi ma imanaysa bay kuwa aan degaan ahayn ama iga ma degaan ahayn iga fogeyn iyo kuwa kalaba ayaa igula noolaa bay tiri Afrika
waxaan markaa maxay ku xoog maarta ku xoog batay tiri oo ka wada adkaaday oo ka wada xoogaysay afafkii qalaad ee dhinacyada iga wada xigay oo anigu markaa waxaan gabaad ka dhigtay tiri suugaan hodan ah oo aan leeyahay iyo af nolosha si dhamaystiran aan ugu cabiran karo wala fahmay yaan wala misaan u baad يا وأفكي ما كهذا يا رجل ما هذا أفكي ما هذا فكي أفكي ما بروح كهذا وحويان سيد لا أركي أنا سيد نسوا أركي وكل دوان تايب مركا دنيا مركا هل كان أفف كان أجنبي كان يجري أهلك أفكا هو وحوي وأفكي هو يدا إذ كلمة أخرى سيد هو يتري أفكا جاي كصوبة كل فوزيان عاو كهذا دون تعنون به هو يدا هذا أنا مركا معنين دون تأثر كبا هو يدو waxay tahay iyo hooyadu qofka ila hadlayso marka waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadinayaa tan waxa iga hay waa furitaan arintaydu way dambaysaa inaan markaa dibintana aan aad iyo aad ugu mahad celiyo intii barnaamijkan runtii inoo soo qabaqaabisay inoona soo habaysay iyadoo aan weliba kuna faanaya mutaqaana maxay gabdhahaygii 10 ahaa ee muddada gaaban ee 8 wiil kaliya qaatay mutaqaana maxay inay cusboonaysiiyaan waa waxa markaa maxay uu waxaad taqaaniin maarta maxay xisaabta waddanka hadda maarta la isku wada hadlo markuu hard drive ku crash garoobo maxaa la sameeyaa dib baa loo format gariyaa soo ma marka gabdhahaygii maskaxdoodii ku format gareysay inay luqadoodii dib ugu soo noqdaan baa horta barnaamijkan sidiisaba aan anigu u xil saaray iyaga inay maarta maxay maamulaan iyagana waxaan ka hadli doonaa marka mataqaana maxay arrimaha kale aan gali doono marka iyaga iyo intii mataqaana maxay meesha quruxda badan la inoo soo habeysay iyo intiina jecelaysatay ee Soomaaliyadu halka keentay inay mataqaana maxay xuska maarta maxay ka qayb galaan afkeena hooyo oo dhanba waxaan idin leeyahay mataqaana maxay jazaakumullahu khayran ilaahayna waxaan ka rajaynayaa insha Allah in ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ilaahay inoogu wada dara dhamaanteen ilaahayna waxaan ka rajaynayaa insha Allah arrinta caawin ugu soo korodhay ee ahayd iyadoo farxad inoo ah haddana qadarkaasi nala soo kulmay de noloshii waa saa u samaysay waaba waxa la yidhi marka fanaaniinta nin baa ka geeriyoodaa la yidhi markaas ay iyagu de wax walba ka man bay ku bilaabaan waxa la yidhi Cabdilaahi Qash baa marka qabrigii oo lagu riday hadda waa ninkii mataqaana maxay balaayo casroorani ayuu ka dul hayso wuxuu yiri waa ayaan buu duni aakhir samaan badna aastagaya badna la aroosaya marka noloshu way socon waxyaabaha qaybka inaga aweeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri cid aan aniga ahayn oo garan kartaa ma jirto qofkuna meesha uu ku dhimanaya xataa ma yaqaan waa laga kaxaynayaa qabrigaagu meel buu kugu sugayaa meesha uma lagu geeynayaa marka walaalkeen maxamuud ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynaynaa insha Allah maanta shahiidnimo ku dhintay ilaahay maarta maxay inuu maarta maxay uu shahiidnimadaas ilaahay maarta maxay uu ku janno geeyo inaga iyo ehladii iyo qaraabadii intuu ka soo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynaynaa insha Allah in ilaahay qalbiga inuu adkeeyo samir iyo iimaan wanaagsan ilaahay nasiiyo isaga intii la dhimatay keligii ma dhimanne iyo ama inta dhaawacna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa insha Allah in maarta maxay ilaahay caafimaad degdeg siiyo dhibaatooyinka iyo masaa'ibka guud ahaan wadamada islaamka ee nagu kamid nahay inay haysana إلهي وحكى رجينا إن شاء الله إلهي ونقدر قاضو وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيمك إنه حكتا وأن هذا الغير يا نعيم الشيخو نعيم وحي إنه شكلنا قالت نورلت كي مريم علي مودي الحديث شغال الله كورابي. ما أنت مناسبة oo luqadeeni lagu xusaya waxaan rabnay inaan ka taabano taariikhdii nolosha Maryam Cali Muudey. Maryam Cali Muudey waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadkii 1958 xaafad la dhaho Shibis. 1972 waxay ka mid ahayd ardaydii lagu asaasay ubaxii kacaanka October uko oo markii dambe ka noqotay macallimad. 1973 waxay ka qayb gashay riwaayad waxayna ka qaaday heystii magaceedu ahaa qabiilku ha dhaco 1974 waxay ka qayb gashay ololihii horumarinta reer miyiga oo ahayd markii la qoray afka hooyo af Soomaaliga 1975 waxay ka qayb gashay munaasabad lagu xusay qoridda af Soomaaliga oo lagu qabtay Stadium Banaadir ay ka qaaday heysteedii caanka ahaa ألف كردوي وتري أبوان سعيد صالح أحمد. كن سجال بخل ثواتني شنتي وحي دكتور روايد ولديه جري جيدي عانو له أو كتر جميسة ردي دتكي
ay ku dhufatay abaartii dabadheer ee la dejiyey Sablaale, Dajuma iyo Kurtunware. 1977 waxay ka qayb gashay African Festival oo lagu qabtay waddanka Nigeria. Soomaaliyana meel fiican ay ka gashay. Marxuumadda waxay ka tagtay hal gabar ay u dhashay wariye Maxamed Aadan Teera oo ka mid ahaa wariyaasha Universal TV, horeyna uga tirsanaan jiray wariyaasha radio Muqdisho. Allah naxariisto. Marka waxaan idinla sheekaynaynaa heesteedii caanka ahayd. mahadsanid wiilkayga waa todobashan af soomaaligiisuna waa daciif wuxuu yaqaanaa dhowr xabood laakiin mar kasta ilmaha lagula hadlo waxyaabaha ka horgaraysa maalinoodii wuxuu samaynayay project iskuulka marka wuxuu tagay wikipedia calankii soomaalida national anthemkii soomaalida waxaasuu doonayay marka waxaan geeyey heestii soomaaliga tooso ayaa ku jirta wuxuu igu yidhi macnaheeda ii raadi so iyadoo ingiriis he looked and wuxuu igu yidhi hooyo why are they saying Somalia wake up? So I think man small high we garanaya. Second garat in leeyahay Somalia wake up. Abi way oranka suma ku taa ma hado toos. I think the recording is there. Like it had came up. So it was a good surprise. But markii af Soomaaliga la qorayay ana waxaad taariikhdii markii Maryam la sheekeynay aniga aan aad soo heesihii aan ku markii dambe anaga iskuulada galnay أنا بسكون waxaan ku dhawaa Soomaali Ingiriis ma arag Talyaani ma arag Carabi ma arag laakiin markii waxa Soomaaliga la qorayay dadka markii la rabay in la dhiirigeliyo oo la afkii hooyaha la barto because dadka qaarkood waxay islahaayeen hadii afka ajnabiga la idin diido adduunyada lama dhex geli karo shaqo lagu heli maayo jaamacad lagu heli karo marka waxay dawladda lagu xaraaqay inay wixii baa Soomaali ka dhigtay oo مثلا waxbarashadii hoos loo dhigo kale iyo ka
marka hees baa jirtay I don't know ma garanay heesta midhaheeda inta badan laakiin waxay ahayd afkii qalaad hamoodi carabku khaldi maaye sidii caanaha qurquriga wala dadku waxay garanayaan sida caanaha wax loo jecel yahay waxa la qurquriya because ingiriiska iyo talyaaniga dadku ku marganayaan so I think waxaan ku soo dhaweynayaa professor Nuux oo inoo sheegi doona runtii af Soomaaliga taariikhdiisa la jaro badan uu si leeyahay baan ugu tagay waa wuxuu ka dhigaa si cilmiyaysan laakiin oo dad simple so I think aan wax oran maayo isaga ay noo iman doonto كان Somali يعني conscious بس كذا واحد بدل إلا هو تعاون سيدي هرا نوشير إلى هاي محمود حرس عبد الله والناس معلم بقى أنا هاجري من بري كلوسا أنا هاجري موضوع عنا دوب في عمبو كقاطع سيجي شباب هذه تطلع كلاهي هذا ما يجي الكوحة عن سودية مالتينا باللغة كهذلو أهمية اللغة ولا يوحي تعلو يوحي سبيس تروح نيجي بنتين الصومالية يهلك الصومالية لأن واحد كهذا يقولنا أبترسينت في الصومالية بنت بدن لغة وين مسلمون دوق في دوق راح يكتم أفكارهم يقولها أفكارها كانت كركشة يا كوجو إذا